بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواada daawadayaashayda qiimaha iyo qaayaha iga mudan aniki jail official ala waan xiriga isku celiyay mashquul busy iyo Janis ay siin waayay asxaabtayda aad ay ku jecelahay mar waliba waxa tihiin dadka ku riyaaqo sheekadeyda iyo idinkaba waa idinku riyaaqa la joogayna jaanqaadkeena joogiina macaan Somali Maxamed guys and girls Ramadan Mubarak Ramadan Kareem ya idin wada LP Leo in the billion نوي عادي مرنا أنا كجيل هذا مقاشان وديوكتين وحنا هاي الصومالي محمد أو أصو صاري عم ماركتين سوقين مقاعيقة مادام وياي مقاع أنت بدل مقاعد مقدش كجدم ضد بدل عن صو قعن قبتي صو صاري ما أنت برابر شدة كم مقضو أنا جي صو صارنا يعني أركويسان أنا صو صاري كذي نقضو أصحابتي دوي كغير شان نقول نقام ميدا دهن إلهي وحو قدري إن أنا صفر يستر رمضان كحقي رمضان كوريد إن عن يوتيوب كيو AMC Studio Production إن كوب بلامن رواية برامجات قبيه لكن هذا كنال دي كله هسيه صوصارستي فانكي دي جي نمدي حاجة يقدي يوتيوب عادي قال ساعتين أنا كي جاي أوفيشال إن تالنت تري واحد بدل إذا كان عادي عين كرو ده أنا في صومالي قاقون ولي بايو إن كقدرت حالة ده بدل أي ما أنت وين كجرا وديين وفني صومالي ayaa dhigaha idinka dhibay war waxaan arkaynaa dad aan waxba sheega aqoonin sheekana aan idin wadaagi karin wax idin ka dhaadhici karin shaahidkeena aan aqoonin in ay baraha bulshada ka dhex muuqdaan waa qalad taasa beenay wallahi nikiyo oo ya LB wiilkan yar wuxuu la koow yahay inta badan magaalada Muqdisho photographs oo aan ku yahay LB Leo laakiin haatan wuxuu la jaan qaadi doonaa aan balla curtay kanaalkan Aniki Jail official nin weyn dadkiis ليو وحو يقول دغاي مرقاتي سومالي محمد يقرا نقدا عاوا وا يدين شيغا اسنا كديسه ku taxbu maana sheegin wuxuu iga codsaday inaan baro editingka waxyaabo badan wuxuu dana codsaday inuu barto music wadu jeedana amleeya waa Ramadan isku cimaamada caawa marada Ramadan waaye ma fahanteen caawa marada la tuura Leo waxaad arki doontiin Leo oo buuxo waa cameraman oo editing ah waxaad arki doontaan Leo oo tumaaya kabanka muusigana caadi tumi doono insha Allah bidnillaahi kariim adoo rabbi ka noqdo isagana uu noqdo qof dadaala wixii loo sheegana wax ka fahma aniga maahi musician maahi kabaniste laakiin 3 ilaa 2 hees oo ku raaxaysto aan ka tuntaa kabanka laakiin asxaabteedii macallimiinteedii iyo inta badan waan ka saacidi karaa waan asxaabteedii weyn sameeyaan Xamaad al-Asad daweeye sharaf korkaada aato si kale ilaaban ku salaamaya walaal waxaan si kale ilaab u salaamayaa Shanu waxaan kale u salaamayaa dad badan subxaanayo musicianada magaalada Muqdisho Umar Muyo from diriskayga way dhibay diriska ma fahanteen Leo waxaan ku soo qaadi doonaa 4 qofood oo Soomaali ah laba wiil iyo laba gabdhood oo YouTuber ah qaarna Muqdisho joogan qaarna Qurbe joogan maadaama aad YouTuber-ka aad ku xiran tahay haddana qof daayar ah tahay laakiin aqligaaga uu korsan yahay Soomaalidan kale kuma taqaan aniga ku sheegi doono waxaan sheekadaasi su'aalaha isku weydiinayo waxay tahay inaan talentigaaga ogaay baba taasana beeneen Leo haddii aad taqaano geedisahan wiil Soomaaliya salaan kaliya laabaan ku salaamaya waxa tahay first ninka labaad السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته guys and girls maxay leeyahay no food caafimaad iyo nabad iyo naruuro ayaa idin rajinaya haddii habeen kuu tahay waxaan ku leenahay habeen wanaagsan haddii afar kuu tahay afar wanaagsan haddii galab kuu tahay galab wanaagsan ayaan ku leenahay nagula casiriyeyso kuma dhigi karno oo waxaan joognaa bishii barakeysneed Ramadaanka Ramadan Kareem walow aan wax badan idinka dhaadhici karo waqtiyada aan la helaynin weynahan oo inoo qoray wad iyo walaalnimo waxayna marayno waqtiyada aan wada qaadan doono bidnillaahi kariim waxaan soo fariistay 4 qofood oo Soomaali ah oo dad tayadoodii talantoodii wax qabadkoodii talantii hadda Soomaalida qaab kale u baxday keep going iyo talantii uu leeyahay qofka xishoodka ka tago wuxuu rabo sameeyo wuxuu leeyahay talantii war dadka ka waalinina cimaamada saarina cimaamad ibra u dhiibina ma fahanteen qofka talantiga waa qofka khibradiisii markay isaga soo dhaafto dadka kala saaciido wax u qabto wax qabadkiisuna ay tahay mid baasan dunida oo dhan gaara yeesan noqon wax qabadkaaga iyo talantidaada mid aflagaada iyo mid xishoodka adiga ka qaada war waxaan arkaynaa qofkan adaa ka waalaayo waxa sameynaysaa qofkii wuxuu sameeyay waxyaabo xishood daran uu qurux badan yahay amba uu ku qanciyay adiga ahaantaada ku qanciyay amba adiga caadi ku leeyahay laakiin qofka ma habboon wuxuu sameeynayo
si dabiiciyan ah. marka reduction aad ka bixiso aad qofka buubuunayso jaab biri wuxuu sameynaa adiga waxaa kugu xiran asxaab badan muhiimada isaga qofkaas uu leeyahay waxay tahay isaga ma laha inuu sameynaayo asxaab badan oo daawato oo 100,000 70,000 iyo 30,000 iyo waxyaabahaas ma haysto marka wuxuu ku qasban yahay sida idinka idiin soo gaaro taageerihiin ay u daawadaan qofkaasna uu fani u noqdo oo looga waalo inuu waxyaabo akhlaaq daran sameeyo marka idinkaa ka bixinin reduction qofka idinkaa ka waalaya dadka Idrisla Cabdi CK waxaad tihiin dad dhalinyaro ah indhaw ah bulsho waxaad haysatiin asxaab badan ma xuma asxaab waa yeelateen idinkuna asxaab baa tihiin dad baa asxaab u tihiin ha naqato bulsho baa u tihiin indho bulsho baa u tihiin codkiina dadka u baahan ee Soomaalida garabka idinkaga baahan ugu adeego codkiina dadka u baahan saacidaad ku saacida habboonboonin dad waxba ahayn waxbaan saacidin dad baan soo saarin hadda caawa labadiina qodob baa idin jirto oo ah laba gabdhood oo idinka soo sameysay laba filim oo la yaab lah gabadha koobaad aan ku soo qaato gabadha dhahaysay CK yaliiraadiyo oo gaarigacan ka soo qaadanaysay funny atri waa wax macquul ah way dhiin kartaa waxyaabo kale oo sameyn kartaa laakiin bal fiiri adigii ma awoodid ee dhalinyaro ah ee rag ah in aad sameyso laakiin iyadii way sameysay okay waxay rabtaa inay caan noqoto tii ay sameysay hadda maanta haddii aadan dhihin abaayo walaashay waa iska caadi inkastoo inshareerneed haddana cimaamad qaldan haddii ay beri sameyso reduction iyadoo aad ku raadinayso maxaa sameynaya way kasii daran tahay Idrisla Cabdi sawirka ay kusoo dhegsato waa caadi oo lagu taageeri karaa qof fani ah waa iska caadi taageernimada ma xuma fanaana la taageeraa qof fani qof caadi ah iska taageeraa dabiiciintiisa iska jeclaadaa marka idinku si ay idiin soo gaaraan dhalinyarada qaar ay waxay sameynayaan marada iska jeexayaan kuma haboona war isceliya cimaamada afkaan kuma haboona kaliya in aad wax ku cunto al rabbina ku cabudo ku xishooto dadkana dabiicada wanaagsan aad kula wanaagto laakiin hadda waxay noqoto afwaan leeyahay hadli karaa xishood ma qoro oo ehel iyo asxaab ro annaga wax walba aan sameey karnaa ehel iyo dad aan leenahay idinka ehel iyo dad aad ka xishootaa ma lidin miya Soomaali Maxamed aan ka xishoonaa bilaa aleeg imaamadiin inta laga haystaa Leo maxaa ku yaak badnaa inta YouTube daawanaysa aawa yaan hadal ku sii dheeraan maxaa leedahay adigoo da'yar ah waxyaabaha ka yaabiye ee dadka ka waaweyn ay sameynayaan sidee kula tahay yo wallahi horta waxa ugu yaab badnaa heerta si laakiin Idrisla Cabdi oo macnaa ninka adiga ko khaniis ku dhagan oo mar walba oo doo soo gal Idrisla Cabdi baan aniga ana friends laahay wallahi Idrisla Cabdi said oo qayli videos marka dawada yaab marka action waxa ka bixinaya marka iyo JK ma reaction ka baxay ajala sheekay official marka xoodha marka labadooda soo wada ninkan zaid oo nagu dhagan yahay CK هذيك Idrisla Cabdina oo soo baxaani oo ninkan wallahi aniki jaale official in badan bulshadayda asxaabteyda walaalahayga Soomaaliyeed dadka indhaha aragaan iska dhibsanay dadka adduunyada ayna kala geysay hadda ka daba only aan wada qon doona aniki jaale official ayaa si toos ah iskugu soo fariisan doona markaan my home kayga imaado sida caadiga ah boorkan dadka igu xiran Instagram kayga Snapchat kayga WhatsApp kayga Messenger Facebook kayga intaba iyo qanina umleena انك جيل اوفيشال stay home wax badan baa la arkay saacadan magaaladan ku jiri jiray guriga waqti baa loo helay xataa videogan laba mar aan soo kala duubnay walow qaybtiisii hore aan kaga hadli rabay Maryan Cali walaasheeda gabarta talentiga wax qabad kale arimaheena wiil Soomaaliyeed wiil boqortooy ninka aad ya dhalinyarada dad in lagu daysto mudan gabadhan kaleeto iyadana food ka kariso Olina Lifin waa gabar waa iyadana wax soo saarkeed iyo wax qabadkeed ku saacada umada kale maadaama aad tahay qof dhalinyaro ah aqoon amba khibrad leh amba fikirkiisu uu yahay mid aad u shaqeynayo waxyaabaha aad ku fikirtay waxyaabaha sameyso iyo sanaqan waxyaabo kaliya aad ku faa'iido dadka kale ee aan khibrad lahayn ha noqdaano kuwa ay wax ka faa'iidaan laga dhaxlaa waxa aad sameynayso ha noqdaano wax dhaxal reebo oo adigu waxaad naqanaysaa geedkii markaas umad badan ay ku hartiso amba cunaya kaas marka insha Allah wiilkan kale isagana geedisahan waa wiil Soomaaliyeed inta soo wadana tagay wax qabadkiisa iyo dalalka iyo xaaladda Soomaaliyeed in badan soo booqda magaalooyinka si dadka Soomaaliyeed wax tar muuqdana ka soo muujiyo magaalada oo imaado first one aad baan ku salaamayaa geedisahan walaal Soomaaliyeed inkastoo mar walba aan barnaamijyada iyo socod aan ku wada kulano haddana
saas xogtaadi dheer uma helin laakiin xogtaadi markaan ogaado waxaa tahay qof mudan ku dayasho qiimeyntiisa iyo mudnaantiisa in la siiyo mudan arrimaheena adigana waxaa tahay qof mar walbaba dhalinyarada oo cadcad dhinac walbaba dadnimo iyo damiirkiisuna uu yahay nadiif dhammaan reer xaajiyow aad baa idiin salaamaya asad xaajiyow cabdullaahi xaajiyow iyo arrimaheena si kal iyo laab walaalayaal qiimo leh diinka si lag iyo laab idin saamayo dahalkan hal laamin oo barnaamijkan la igiina oo faanijil ugu dahla loo geeshiya idinku la saamayo oo la xada iskaga raweysayno aan insha Allah aan soo ridaari doonaa yacawda galahan iga daaqda waxaan kale oo inta ka xusayaa iyo wiilka kaleeto laba wiil geedisaan arrimaheena Maryan Cali Olina afartaas qofood oo afar qofood oo lagu dayinsan karo waa dhalinyarada wax qabadkoodu uu yahay waxay qabad faa'iido leh adduun iyo aakhiraba dadkuna ay ku faa'iidaan idinkuna naqda adduun iyo aakhiro sumcad iyo sharaf lacagta sidii shaqo u rabto ayuu camalka wanaagsan iyo wax qabadka iyo xasanaadka qofka asxaanka aad u farsho ugu baahan yahay shaqo taas beema wallahi inama almu'minuuna ikhwatun fa aslihu bayna aqwiyaha rabbigeena lahay isjeclaad is saacida anigana waa idin jeclaan doonaa marka haddii aadan naqan qofku wuxuu uu haysto farsamada iyo aqoonta yar aad haysato walaalkaaga bilaa khibradda bilaa fahanka bilaa aqliga bilaa cimaamad la'aanta uu ka faa'iido waxay ku tahay dareen qabow dadnimo iyo sharaf ay ku tahay qof dhaxal ka tagay baa tahay adduunyada qof ku saaciday aakhirana qabowgiisa haysto laakiin haddii ay tahay qof xumaanta kusoo shartago wax faa'iidaa leedaa mala sumcadda hadda waxayba naqatabo mid xumaan lagu raadiyo waxaan arki jiray tuug waa magac laakiin waa qaybta xumaanta hebel caawo tuug weyn waaye hadda saas aan ku naqay heblaayo shab waaye waa lagu farxaya ka waran sheekada inta taa ku dhigtaa ilaa namooti horta gabadha inta taa wadhees inta faraa galgali inta taawo waa ku kaliga abu wala tumataya kawantoodaya kawarkeentaya waa yeelkada kasta waa yeelkadaada caawa habeenkaaga ma aha habeen gooniya leedahay waa su'aal iyo jawaabteeda isfuran insha Allah Ramadaan mubaarak باذن الله الكريم هذا رمضان ومحمد وهبينا وكجرناي يبقى ان شاء الله habeen wanaagsan ki jalo official share like comment jawaabteeda ana ku siin doona hadii aad ay soo qortay xitaa aniki jale dib u raac magaca ana ku jecel weey marka ana ku jecel waxaad soo qortay ana ka raali kaaga ii soo qor جوابتها مدة قادم دونتا بإذن الله الكريم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عافمات كعشية كنا عوية قبل ونكسن وقتها وقت يز كله يعني كجال اوفيشال سؤالها جوابها إن شاء الله